qaab dhismeedkooda iyo shaqadooda keenayna guddiga la talinta iyo dabagalka iyo kormeerka sidaas oo kale marka waxaan rabnaa haddeer inaan si guud aan isula fahanno daraasadda shanta gees miisaankeeda nolosha shantiisa tiir qaybtii afaraad inay tahay umayna qaybtii koowaad waa aan soo qaadana golihii oo ay nooga soo baxayeen oo adeegayaasha ummadeenna labo aqalkii oo waxaan ku heshiinaan dhiganayno saddex hay-addii maandeeqna oon lisi lahayd afar guddigiiyaan ka dhignay qodobka shanaad dowladnimada ama dowladda waa u tegi doonaa kanuu ku xigaa haddeer marka shantan mid kasta waxaan keeni doonaa asagiyo faahfaahsan ee la socda min fadlikum waxaan bartanka ugu jirinaa weli daraasadeenni shanta gees miisaanka nolosha tiirkiisii afaraad guddiga ummadda soomaaliyeed waxaan ku keennay shan tiir ay ku taagan yihiin ama shan qaybood aan kala saarnay guddiga doorashada guddiga farsamada guddiga la talinta guddiga dabagalka guddiga kormeerka mid kasta waxaan samayn doonaa marka shaqadii uu qaban lahaa iyo inta qaybooda u kala bixi kara kow guddiga doorashada shantan tiir uu leeyahay kow doorashada hoose doorashada dhexe doorashada sare tirinta iyo shaacinta kow waa doorashada hoose labo waa doorashada dhexe saddex waa doorashada sare afar tirinta shan shaacinta shantan tiir ayuu leeyahay doorashada hoose dhexe sare waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid brofesor qaanuun muxuu ka wadaa aan ku fahansiiyo haddeer labadii maalmood aan soo dhaafnay waxaa saas madaxa iskula jira guddigii doorashada waa qolada la yiri iyo qoladii kaloo kasii hooseysay oo wax ka sugaayay oo isdhahaya dhammaan hay-adaha kala duwan amay dhexdhexaad u yihiin ayaga waa badax bannaan yihiin laga shiinsanayay ayaa maanta madaxaas iskula jira ila soo soco doorashada hoose doorashada dhexe doorashada sare tirinta iyo shaacinta haddii aan idiin sheego aad iyo aaday u fududahay kow doorashada hoose maxaa waaye adig madaxweyne xagga noo dhig ninka la dooranaya waaba isaga keliyaba laakiinse xildhibaan iyo wasiir waa la magacaabaa xildhibaanna wuxuu nooga soo bixi doonaa golaha soo saari doona ummadda soomaaliyeed kaas dhib ma lahan laakiin madaxweynaha markii la dooranayo waddadee loo maraa waa meel aad iyo aad u xiiso badan doorashadaas markay dhacayso waan arki doontaan doorashada hoose waxaa laga wadaa in guddiga doorashada ay geeyaan sanduuq tuuladeenna ugu xaggaysa ee la soconiyo doorashada hoose guddigan waxaa laga rabaa maadaama aan u xil saarnay sanduuqii maxaa la dhihi jiray codka lagu ridaayay oo aan rabno ninkii oo maxaa la dhihi jiray na hogaamin lahaa maxaa la dhihi jiray aan ku dooranayn sanduuqaas waa inay noo geeyaan tuuladeenna ugu xaggaysa doorashada dhexe waa inay sanduuqa geeyaan degmada doorashada sare waa inay sanaadiiqda geeyaan caasimadaha ee gobollada warkaas waa cad yaan malaynaa waayo bulshada kala duwan nooc kasta isugu jirta annaga dadkeenna siduu ilaahay u qaybiyaan u qaybsannay ayaga saasaan wax ugu qaybin doonaa saasaan ku wada socon doonaa ani adi qabiil ya waa ku wada socon weyno sooma waa soo aragnay laakiin maanta haddaad beeraley tahay anna xoolaaley aan ahay waa wada socon karnaa haddaad maxaa la dhihi jiray aqoon-yahan aad tahay haddii ninkan kale uu yahay maxaa la dhihi jiray farsamo yaqaan waa wada socon kartay waxaan waa xirfad okay waa ay fahanteen umayna markii saddexdaas la sameeyo saddexdaas sanaadiiq markii saddexdaas goobood la geeyo
wax kale baa ku xigaya hadde doorashada soo xirbaysaa tirin aa lagu dhaqaaqaa kadibna shaacinta waay shaacintan wax muran kama imaan doono waayo meesha xisbi laguma xisbiye isma dooranayaan xisbi haddii laga badiyo waad aragteen asoo in laga badiyo og ayuu buuqi arbushaad kiciyaa marka kaas boos uma hayno asalkiisana meesha laga keeno iska taqaana shaygiis uma baahna waa ka gudbaynaa intaan ka gudbin doorashada habka madaxweynaha loo dooran doono ilaa weli waxaa noo dhiman habka madaxweynaha loo dooran doono aad iyo aad u xiiso badan tahay markaan tagna sheegi doonaa waa ka gudbaynaa guddiga farsamada maxaa la jiray shantan tiir uu ka kooban yahay tababarka ayuu qaabilsan yahay wuxuu qaabilsan yahay xubnaha shaqaalaha dawliga maxaa la dhihi jiray inuu maxaa la dhihi jiray uu kor u qaado waxaa kale maxaa la dhihi jiray uu ka kooban yahay fariisinta hay-adaha dawliga muhiim waaye fariisinta hay-adaha dawliga isagaa laga rabaa maxaa la dhihi jiray soo saarista shaqaalaha dawliga isagaa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa maamulka mudnaansiinta howlaha dawliga cafwan mudnaansiinta howlaha dawliga asaga laga rabaa in uu fariisiyo waayo shaqadiisii waayo guddiga la talinta shantan tiir ayuu ka kooban yahay tiirka koowaad haykalka dawladnimo in lagala tashado markii la samaynayo siyaasadda talow ku leeyahay diblomaasiyadda sidoo kale maxaa la dhihi jiray intaan la qaadanin go'aamadana waxaa la rabaa in asaga lagala tashado go-aan soo saarista ama go-aan gaarista cafwan go-aan gaarista saa laga rabaa shan masiirka ummadda waxa waaye go-aan weyn ayuu ku leeyahay ilcaan maya waan ka gudbaynaa guddiga dabagalka shantan ayuu noo dabagelaa bis dhaqaalaheenni maamul mas-uuliyadda cafwan dhaqaalaha mas-uuliyadda maamulkeenna qorshaha dawladda iyo waxqabadka shantaas ayuu noo kontrooli doonaa ama uu noo dabageli doonaa kii shanaadan gelaynaa guddiga kormeerka shantaanu noo kormeeraa shanta aan noo kormeera waxay tahay nabadda habka ay nabadda u socotay habka nabadda loo suga waxaasoo dhan ayuu kormeer ugu baahaya cadaaladuu noo kormeeraa midnimaduu noo kormeeraa sinaantuu noo kormeeraa horumarkan waa uu noo kormeeraa qaybtan waa ka gudbaynaa